waxaa laga yaabaa inaad la yaabtay cinwaanka sheekadan 22 sano kadib Arsenal bilooyin ka hor waxa ay shaqada ka direen ama la shaaciyay inuu iscasilay tababare Arsene Wenger kaas oo muddo joogay kooxda Gunners weji cusub ay gashay Arsenal waxay doonayaan inay isbedel sameeyaan una Emery ayaana kooxda loo dhiibay balse Wenger waa la buriyay ee isma casilin waxaa sidaa yiri ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Jack Wilshere kaas oo hadda ku biiray kooxda kubadda cagta West Ham United. Arsene Wenger ayaa saxaafadda soo istaagay maalin Jimcaha isagoo sheegay bishii Abriil inuu iska dhaafay gabi ahaanba kooxda kubadda cagta Arsenal maamulkeeda balse Jack Wilshere oo la socday xaaladda gudaha ee maamulka iyo tababare Arsene Wenger wuxuu sheegay in Wenger lagu qasbay go'aanka uu saxaafadda u sheegay lagana buriyay kooxda kubadda cagta Arsenal balse maamulka sare ee kooxda Arsenal way xushmeeyeen Wenger maadaama uu wax badan kooxda joogay waxay kaliya go'aansadeen in go'aanka uu isaga qaato hadallada uu maalinkaas dhahay Wenger waxaa kamid ah kadib markii si taxadar leh aan u fikiray aan fiiriyay go'aanada iyo waxyaabihii dhacay waxaan go'aansaday in waqtigan la joogo waqtigii joojin lahaa inaan kooxda ka sii shaqeeyo ayuu yiri Wenger. Jack Wilshere oo marxalad adag ku jiray markaas dhaabacna una baahnaa in heshiis cusub laga saxiixdo wuxuu yiri aniga waxaan la kulmay isaga sanadkii la soo dhaafay waan la hadlay tababaraha waqtigaas Wenger ayaa tababare ahaa wuxuu ii sheegay inuusan awood u lahayn inuu heshiis cusub iga saxiixo sababtoo ah wuxuu sheegay inuu bixi rabo xilligaas aniga waa dhaabacna wayna ugu adkeyd maxaa yeelay ma jirin koox rabtay ciyaaryahan dhaawacan mana ciyaari karin kubadda cagta waxaan go'aansaday inaan iska joogo kooxdan dib ugu soo laabtay waxaan la sameeyay tababar bishii January ayaan heshiis diyaar u noqday in la iga saxiixo balse markaas Wenger ayaa ku dhawaaqay inuu kooxda ka tagay aad ay ugu adkeyd qof walba inuu la yaab ku noqotay Wenger wixii uu sameeyay sidoo kale Mertesacker oo ahaa kabtaanka kooxda ayaan isla hadalnay wuxuu ii sheegay in xaalad hoose ay jirto ah in tababaraha la buriyay saadarteeda saxaafaddu waxay kaliya ogaatay in Wenger shaqada tababarnimo ee kooxda iska casilay balse Jack Wilshere ayaa hadda banaanka soo dhigay in maamulka sare ee kooxda Arsenal ay ku qasbeen go'aankaas taas oo u dhigan in shaqada laga buriyay tababare Arsene Wenger.